kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxaa qayb ka noqonaya Abiy Ahmed oo amray in dhammaan dadkii ama xarada ee ku sugnaa Addis Ababa la ugaarsado in ka badan 150 qofood ama xara ah ayaa xabsiga la dhigay magaalada caasimadda Addis Ababa oo lagu kala tagaya markan dadkii ka soo jeedo gobolkeeda ayaa la ugaarsanayaa si loo ogaado inay la shaqeeyaan xogaga faaniyiin kale wararkaasi saaxiibayaal eegi doona booliska Oromada waxay bilaabeen baaritaan dheer Oromiya maxara ayaa qoorti isugu jira Abiyna waa uu eeganaya wararkaasi saaxiibayaal barnaamijkeenu ku eegi doona soo dhawaada wararka ugu dambeeyay naga soo gaaray qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in ciidanka booliska Oromada ay qaadeen tallaabooyin la xiriira in ay cunsuriyaan dadka ka soo jeeda gobolka maxarada maadaama dagaal xoogan ay jabada faana wado ciidamada booliska ayaa dhammaan taleefanadii ka qaaday dadka deegaan ahaan iyo qoomiyad ahaan ka soo jeeda maxarada ee ku nool magaalada caasimadda Addis Ababa ee Itoobiya waxaana dhammaantood laga baarayaa sawirro iyo muuqaalo iyo xiriir qaar ee qoraal ay la sameeyeen dadkan ka soo jeeda gobolka maxarada jabada baysan ee faano waxaa la soo warinayaa in boolisku ay dhammaan dadkii ay xireen taleefanadoodii ay weydiiyeen baasweerada iyo xogaha la xiriira waxa ay damacsan yihiin waa in la baaritaano ay sameeyaan oo ay baaraan dhammaan xogaha la xiriira dadkan taleefanadooda iyo waxa ay damacsan yihiin xukuumadda Abiy Ahmed ayaa hadda waxa ay ballaarinaysaa in ay maamusho dhulka gobolka ama xarada 60% ayay hadda ciidamada militariga ee ka amar qaatay Abiy ay ka taliyaan markii loo eego dhulka Itoobiya gaar ahaan dalka maxarada haddii ama xara faana ay la wareegto magaalooyinka Dabrabarham Dabrisina iyo deegaano kale xukuumadda Abiy Ahmed ma sii joogi karto Artakalo iyo Addis Ababa waxaan la soo warinayaa in 60% dhulka ay maamulaan hadda ay noqon karto dhul ay gacantooda ka sii bixi karto dhan badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dhulka Itoobiya ku yaala ayaa xogu waxay sheegayaan in xaalado kala duwan ay isku biirsadeen shawarubida waqooyiga gobolka Shaawa ah ciidamada faana ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada kadib dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay iyadoo la soo warinayo in magaaladan ay guud ahaan ciidamadu la wareegeen waxaa la soo warinayaa in isbahaysi xoogan halkaasi ay ka dilaaceen iyada oo deegaano badan oo ka tirsan dhulka Itoobiya ay xaaladaha halis ka jiraan Oromada ciidamadeeda waxay qabteen shirar ku saabsan oo ay ka qayb qaadanayaan inay ku abuuraan ciidamada faano inay ku kala jabiyaan iyada oo la beegsanayo xubnaha qoysaska faano iyo warar been abuur oo ku saabsan dhimashadooda waxaa la warinayaa in dhammaan dadka ka tirsan ciidamada jabhadda faano guryahooda lagu weerarayo oo ciidamada Oromada ay weerarayaan qaybo badan oo ka mid ah dhulka ayaa la soo warinayaa in dhulka maxaradu ay bilaabeen inay abaabulaan weeraro ay ku doonayaan inay ku beegsadaan Kenyatta Borno County iyo sidoo kale Weelo ayaa dagaalo xoogan ka socdaan labadii maalmood ee ugu dambeeyay halkaas oo la soo warinayo in ay xaalad halis ku haysato dhinacyada ka soo horjeeda ciidamada militariga Itoobiya iyadoo magaalooyinka istiraatiijiga ee maxaradu ay weerarayso xaalada halis laga soo warinayo degmooyin badan ayaa waxaa laga soo warinayaa in dagaal ay ka socdaan duqeymo ayaa barbar socda dagaaladu ciidamada faanana waxay go'aansadeen in ay jabiyaan oo ay la dagaalamaan ciidamada hubeysan ee ka soo horjeeda oo ay dagaal la galaan maadaama xaaladdu ay ka duwan tahay sidii hore faano qorshaheedu waa inay qabsato magaalooyin istiraatiiji ah oo ay godoomiyaan dhammaan qayb badan oo ka mid ah xaaladda guud ee magaaladan iyo wararka ugu dambeeyay oo la xiriira inay qabsadaan magaalada Bahardar iyo sidoo kale Addis Ababa waan u soo laabanayna wararka Itoobiya markan haddii aanu eegno taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa goordhaweyd markii ugu horeysay ka hadlay weerarkii saacadaha badan qaatay ee hotel Su'aal ka dhacay kadib markii goor sii horeysay oo saaka ah ay gabiyaanba ciidamada ammaanku soo afjareen raggii weerarka soo qaaday oo hotelka ku jiray afyeenka booliska Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa agaarka hotelka weerarku uu ka dhacay isagoo ku sugan waxa uu shaaciyay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa 27 ruux halka ay ku nafwaayeen ciidan gaaraya ilaa 3 askari waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay toogteen dhammaan maleeshiyadii weerarka soo qaaday oo tiradoodu ay ahaayeen 5 dagaalyahan kuwaas oo uu sheegay in ay si dhuumaaleysi ay ku soo gaareen goobta ay weerarka ka fuliyeen qawaariijtu waxay 3 saac iyo bar habeenimo weerar dhuumaaleysi ah ku qaadeen hotelka Israel ciidanka nabadgelyada oo si degdeg ah ugu jawaabaya saacado kadib waxa uu banaanka soo dhigay 5tii qawaariijta ahaa ee gudaha u gashay hotelka Israel ayuu yiri afyeenka u hadlay booliska afyeenka booliska Soomaaliya waxa uu sheegay in dadka ku dhaawacma weerarka ay ku jiraan xildhibaano kuwaas oo uu sheegay in uusan cusleen dhaawacooda ayna lugahooda ugu tageen goobta weerarku ka dhacay
sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda amni ee hoteelka iyo agaarkiisaba ay sidii caadiga ahayd kusoo laabanayso. Nabadgelyo fiican ayaa jirta, hoteelkii nabad weeye, xildhibaanadii iyo intii hoteelka deganeed dib ayay ugu soo noqnoqonayaan ayuu yidhi. Booliiska ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo sida ay dagaalyahanada Al-shabaab ku gaareen hoteelka ay saacadaha badani ka dagaalamayeen maadaama uu ku yaalo iridda madaxtooyada Soomaaliya. Arrintan baaris ayay ku jirtaa, hay-adaha nabadgelyada ayaa u xilsaaran oo sida ay wax u dhaceen baaristeedii waa la daba joogaa. Xaaladda ilaa hadda baaris ayay ku jirtaa, dhacdaduna way cusub tahay, waxa ka soo baxa saxaafadda ayaanu la wadaagi doonaa ayuu yidhi markaa afhayeenka booliiska. Si kastaba ha ahaatee, kooxda weerarka fulisay iyo gawaari qaraxyo ah oo ay ku rarnaayeen oo ay wateen ayaa ka gudbay koontarool adag oo loogu gudbo goobta ay weerarku ka fuliyeen, taasi oo sare u qaadaysa tuhunka ah in la fududeeyay weerarkan, halka booliisku uu la soo shirtagay inay si dhuumaaleysi ah ku gaareen halkaasi. Ma jirto albaab laga geli karo hoteelkan ama weerar laga fulin karo maadaama ay meeshu tahay meel aad amnigeeda loo xaqiijiyo loona ilaaliyo, waana goob istiraatiiji ah. Suuragal lama aha inay gaarto qof idhikaar aan wadan ama aan aqoonsi dowladeed wadan. Dhanka kale, haddii aynu eegno, xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si weyn u dhaliilay hanaanka lagu soo dhisay Golaha Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed oo Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalk Soomaaliya magacaabistoodu ay shalay ansixiyeen. Golahaas oo ka koobnaa 9 xubnood ayuu Cabdiraxmaan sheegay inuu hanaan saxan aan loo marin soo xulistooda, isagoo xusay in aan lagala talagelin ururada saxaafadda, warbaahinta madaxa bannaan, tan dowliga ah iyo guddiga arrimaha warbaahinta u qaabilsan baarlamaanka. Xildhibaan Cabdiraxmaan ayaa soo taxay ilaa 4 qodob oo waajibaadka guddigan ka mid ah, wuxuuna sheegay in qodobadaasi oo dhan aysan gudan karin, saluugna ka muujiyay sida shaqada guddigan ay noqon doonto. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa xukuumadda ku eedeeyay ka talo-simidda. Waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan weli ka bixin nidaamkii kaliya-taliska ahaa. Waxa uu qoraalka uu qoray u qornaa sida tan: saxaafaddu waa tiir ka mid ah tiirarka dowlad wanaagga, waxaase ayaan daraa in Golaha Warbaahinta Qaranka ee ay xukuumaddu maanta ansixisay uu yahay mid baalmarsan sharciga saxaafadda iyo qiyamka dimuqraadiyadda. Ujeedka ugu weyn ee golo warbaahin loo sameeyo waa 1. In ay ilaaliyaan xuquuqda wariyaasha, waa xurmada xarumaha warbaahinta iyo guud ahaan xaqa bahda warbaahinta. 2. In ay muwaadinka ka ilaaliyaan xadgudubka kaga imaan kara saxaafadda, suxufiyiinta iyo warbaahinta. 3. Inay baaraan isla markaana dabagal ku sameeyaan dacwadaha la xiriira saxaafadda. 4. Inay ilaaliyaan ku dhaqanka xeerarka iyo anshaxa saxaafadda, kana shaqeeyaan shuruucda la xiriira saxaafadda ka hor inta aanu la horgeyn golayaasha sharci dejinta. Haddaba, si goluhu u gudan karo waajibaadkiisa, ayaa sharciga saxaafadda dhigaya in xubnaha golaha ay ka yimaadaan dhinacyada ay khusayso sida ururada ay u doodo xuquuqda wariyaasha, milkiilayaasha warbaahinta madaxa bannaan, dowladda iyo ururada bulshada rayidka oo matalaya dadweynaha, isla markaana la marsiiyo hubin iyo turxaan bixin si loo hubiyo in ay ka bixi karaan mas'uuliyadda loo igmaday iyo in kale, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Soomaaliya, si kasta uu dastuurka dimuqraadi u yahay, weli dhaxalkii kalitalisnimada ah iyo in dowladdu wax kasta iyadu ay magacowdo waa laga bixi laayahay, ayuu raaciyay. Haddii 9 xubnood ay xukuumaddu soo jeedisay waa saamileydii kale ee saxaafadda matalaya, maxayse tahay sababta dhinacyadan ay u khusayso looga talagelin waayay? Xubnaha ay ugu yeelan waayeen guddiga baarlamaanka ee saxaafadda waa in uu arrinkan baaritaan ku sameeyo, ayaa mar kale uu yidhi xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aad u dhaliilaya go-aanka iyo ku dhawaaqista guddiga warbaahinta qaranka oo shalay Golaha Wasiiradu ay ku dhawaaqeen isla markaana ay ansixiyeen. Warbaahinta madaxa bannaan ilaa iminka way ka aamusan tahay, mana jirto dood ay ka qabaan marka laga reebo qaar ka mid ah siyaasiyiinta oo aragti ahaan ka soo horjeeda guddigan ay magacaabeen Golaha Wasiiradu oo ay ansixiyeen. Guud ahaan halkaas aynu kusoo gabagabeynayaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doono. Nabadgelyo.